waxaan ku suganahay magaalada Durban ee gobolka KwaZulu-Natal ee dalka Koonfur Afrika oo ah halkii ay ka bilowdeen rabshadihii looga soo horjeeday dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan waddankani Koonfur Afrika. Waxaan booqday goobihii dhawaan ay ka bilowdeen rabshadihii ka dhacay waddanka Koonfur Afrika oo koobaha ka fofog magaalooyinka waaweyn. Waxaa socodka igu wehliyey gudoomiyaha isboortiga dhalinyarada ah gobolkan KwaZulu-Natal iyo sidoo kaleento Siciid Mire oo ah aqoonyahan ka tirsan jaalida Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika. Inta aan maraynay wadooyinka iyo waliba goobihii ganacsiga waxa indhaheenu qabanayeen goobo ganacsi oo xiran, kuwa shaqaynaya iyo kuwa rajo laga qabo in la furo maalmaha fooda ay nagu soo haya. Iyadoo sidoo kalena ay xusid mudan tahay in maalintii shalay ahayd goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed lagu boobay deegaankan gobolka la yiraahdo KwaZulu-Natal. gobolkan waa gobolka uu ka soo jeedo madaxweynaha dalka waa madaxweynihii saddexaad ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma waana halka ay ku badan yihiin qoomiyadda ugu ballaaran dalkan Koonfur Afrika ee la yiraahdo Zuluga kuwaasi oo boqolkiiba 24 ka ah bulshada dalka Koonfur Afrika. Dhacdooyinkan ka dhacay magaaladan ama gobolkan KwaZulu-Natal waxay ahaayeen kuwa reebay dhibaatooyin ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay deegaanadan ku xeeran magaalada Durban ee gobolka KwaZulu-Natal. halkan aan ku suganahay waa dukaanka ugu weyn ee Soomaalidu ay ku leedahay deegaanka Kalemon ee dabcan kamid ah dukaamada xiran oo ilaa haatan aan la ogolaan in dib loo furo, balse waxaa la rajaynayaa maalmaha soo socda in dib loo furo dukaankani oo haatan dadkii ka shaqaynayay ee gudaha ugu jiraan. sida la ii sheegay dhowr iyo 10 madow ah ayaa ka shaqaynayay kuwaasi oo ku shaqo waayay xilligii la xiray dukaamada ku yaala deegaanada Durban. inta aan joogno magaalada Durban waxaa idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaankan iyadoo sidoo kale aan wareysan doono dadka xog ogaalka u ah arrimaha dhacdooyinkaasi iyadoo ay ku howlan yihiin jaalida Soomaaliyeed ee ku nool gobolkani sidii loo furi lahaa goobaha ganacsi ee xiran halka kuwa kale ee shaqeeyana sharciyad loogu raadi lahaa. bismillahir rahmanir rahim. Xasan Kaafi waa mahadsantahay booqashada aan soo booqatay gobolka KZN ugu timid. runtii haddii aan kaaga warbixiyo xaaladihii 3 Juun dhacay eriyadan aan joogno xaafadda Kalemon ayaa la yiraahdaa waana xaafad ilaa 11 ilaa 12 dukaan oo Soomaaliyeed ay ku taalo waxaana ka dhacay boob xoogan oo dukaamada Soomaaliyeed inta badan waa la boobay kadib caqabadihii ugu waaweynaa ee gobolka guud ahaan ka dhacay waxay ahayd in dukaamadii Soomaalida ay xaafado kala gedisan ee gobolka ku yaala loo diiday in dib loogu noqdo oo qaarkood ilaa hadda dib aan loo furin dukaamada hadda lacagta aan soo marin waxay ahaayeen kuwii la boobay welina aanan xal loo helin in dib loo furo. waxaan rajaynaynaa in dhawaan إن شاء الله إله سبحانه وتعالى ونوفذ إن دبلو فرو كان عست الصوماليات أيقوه الهلاس سيدو كلا ويجران دكان مشان الله بوبي وحافظ إن عند اللي هذا لو بوبي رانتو حن رجينا إن عقبتها سجراهي شيء من لوجس متبح دونه وما دام دور شوين يحصل له هنا وين سامي سي أورك ما جان ما جنوح وقسامين كلها إن قبل كدباتان رقالة وقدعان دكان مدي هذا القاركود عن صومر نحكي شقيناي دad ilaa 340 madow ah waxaana aan rajaynaynaa in jaaliyadda Soomaaliyeed ay si toos ah ula tacaamusho xaaladahaas jira gudiyo ku holana way jiraan holaas. waxaad arkaysaa qof shalay taajir ahaa maantana aan shaaha shuba karin waana sheekada taala waddanka Koonfur Afrika. la soco barnaamijka Kaafi iyo Koonfur Afrika waxaan kala soo hadlayaa magaalada Durban.